السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي صوماليين ملول بأدونك كجوغان وحان ليهي رمضان كريم. رمضان كريم ملول بأدونك كجوغان صوماليين وحان ليهي رمضان كريم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. aad baan u murgeysanahay runtii waxaan rabaa kolley sida caadada inoo ahayd bulshaweynta Soomaaliyeed inaan mar walba wacyigeliyo aan wax u sheego waa waajib Ilaahay isaaray weeye qof walba Soomaali ahna waajib Ilaahay uu ka saaray in bulshadiisa oo wax u sheego Ilaahayow hal kalima Allah ka dhigo oo wax anfacaysa inuu qofka walaalkiisa uu u sheego waa wax waajib ah weeye marka runtii wax kale lama murgeysni wadankii qaasatan magaaladii Muqdisho oo wadankii meeshii laga xukumayay ay ahayd caasimadii Soomaaliya ay ahayd ayna tahay yaa hadda waxa waaye aad iyo aad siyaasadeeda aad iyo aad u qasan walaalayaal marka runtii arinka asiga ayaan aad ula murgeysanahay runtii laakiin hadeertaan idin la hadlaayo ayaan salaad subax tukanay Allah naga aqbalo waxaana waajib naga saaran inaan wadanka u duceyno uguna duceyno qof alle iyo qofkii wadankaasi u rabo inuu horumar gaarsiiyo inaan u duceyno kii wadankaas u rabana inuu balaayo iyo shar iyo dhibaato u geysto rabana Ilaahay inuu ka qabto waa in sidaas loogu duceeyaa marka run ahaantii wadankan asiga ah waan wada leenahay qabiil gooni ah malaha shakhsi gooni ah ma yeelan karo wadankaasi Soomaali la yiraahdo waa naga badan yahay sida mar walba aan ku celceliyo wadankaas waa naga wada dhaxeeya walaalayaal qaasatan caasimadda way naga wada dhaxeysaa qolo gooni ah malaha qabiil gooni ah malaha shacabka Soomaaliyeed wada leh walaalayaal waa wada ogsoonahay oo ka wada dharkasanahay ayadoo saas ay tahay walaalayaal waxaa la rabaa shacabka korkiisa in lagu wada dagaalamo للأسف shakhsiga maanta la joogo wadankaasi u baahan in la badbaadiyo oo maanta run ahaantii oo raba inuu wadankii oo ma aragtay dagaal uu ku sameeyo raba ka waran walaalayaal waa nasiib darro marka waxaan leeyahay shacabka aqliga leh iyo dawladda madaxdeeda kala duwan ee aqliga leh ee rabta inay wadankaasi horumar gaarsiiso waxaan leeyahay Ilaahay garabkeena ha wada galo annagoo dhanba insha Allah tabaaraka wa taala waan guuleysanaynaa shakhsiyaadka qaar oo iska hadal aan loo dayanin ku hadlayo oo baraha bulshada soo dhigayana runtii kuwaas waxaan leeyahay iyagana annagay naga dhasheen waa dad walaalaheena ah Ilaahay iyagana jidka iyo ama xaqa Allah tusiyaan leenahay biidnillaahi tabaaraka wa taala waxaan rabaa xaaladda hadda wadanka uu marayo culimada Soomaaliyeed inaan la hadlo si gaar iyo si guud inaan ula hadlaan raba culimada waxaan ka baryayaa in bulshadoodii ay Ilaahay ma aragtay wax u baray inay wacyigeliyaan ay diinta ay u sheegaan ay xaq fahansiiyaan ayaan rabaa inaan ma aragtay aan ula dardaarmo culimada inay ka hadlaan ay shacabkaasi inay u turaan in loo turo ay mudan tahayna in ma aragtaa dadkaasi walaalaha wax loo sheego ma aragtaa dhibaatada wada iyo qaska wada in oo ma aragtaa dhibaatadaasi ma aragtaa ay wadaan ay siday u joojin lahaayeen haloola wacyigeliyo marka dhibaatadaas soo kordhay insha Allah dadka qaswadayaasha ah waa laga guuleysanaa biidnillaahi baari dawlad dhan oo dhisan cid dumin karta Ilaahay abuurto malaha shakhsiyaad ay dumin karaanna malaha
taas ayaan ballan qaadaynaa insha allahu tabaaraka watacaala waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala xaqa inuu mar walba koreyn doono biidni illaahi kariim. intaas yaraan rabay inaan idinla wadaago. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.